بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، marka koobaad ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mahad ballaaran u qiraynaa. ilaahaygi na makaniyey saaka inaan isugu imanno beyt ilaahay buyuudiisa ka mid ah iyo guri ilaahay gurihiisa ka mid ah, innagoo maaragtay ilaahay diintiisii wax isaga sheegayno oo dikriga ilaahay iyo barashadii diinta iyo waanadeediiba isugu imanna. ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan. intaa kadib waxaa aad iyo aad u mahad ballaaran aan u qiraynaa gabdhaha walaalaha ee imaaday ee soo xaadiray ee maaragtay wakhtigoodii iyo waxa ay hayeenba u soo horay iyo gurigii ay joogeenba ka soo tegay iyo howlahay lahaayeen una soo kicitimay inay dhegaystaan muxaadarada iyo diinta ilaahi subxaana wa tacaala ee saaka meeshan lagu hayo. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin gabdhahaasi iyo dhammaan inta dhegaysanaysa muxaadaraadkan. waxaan kaloo mahad ballaaran u qiraynaa fadiilatu sheekh maxamuud maxamed shibli oo run ahaantii maaragtay wakhtigaan soo horay maanta wakhti badanna aan ka cunnay oo walaalaha ay soo daaheen. marka saaka 2 saac inaan bilownay ahayd muxaadarada, laakiin waxaad moodaa maaragtay gabdhuhu inay maaragtay ay dib u dhaceen oo ilaa aminkanba ay soo socdaan. marka taasna waxaa weeye cudurdaar baan ka bixinaynaa. waxaa kaloo mahad ballaaran u qiraynaa dadka dibadaha nagala socdo 144ka ka dhegaysanaya. dad badan ayaa maaragtay ka dhegaysanaya internetka muxaadaradan si toos ah. meelo badan oo muslimiinta soomaalida ay degan yihiin ay nagala socdaan oo maaragtay technology-ga cusub ee 144ka ay ku dhegaysanayaan si toos ah. marka ayagana waxaan leenahay waad mahadsantihiin. intaa kadib muxaadaradu waa muxaadaradii billaha ahayd bil walba dhici jirtay ee lagu qaban jiray masjidka sigiska ama xaafadda isli guud ahaan loo qaban jiray. ay soo diyaargaraysay ama ay soo qaban qaabisay dalladda madaarista qur-aanka kariimka ah. waad garanaysaan oo maaragtay dalladaas oo acmaasha dacwiga ah ee isli iyo sawsi iyo komorog iyo meelo xaafadaha kala duwan gedisan ee magaalada nairobi acmaal kala gedisan oo dacawi ah ka qabato. marka insha allahu tacaala muxaadaradeennan maanta waxa ay ku saabsanaan doontaa raximka, qaraabada, xidhiidhinteeda iyo goynteedaba. maaragtay raximka oo qaraabada waad garanaysaan iyo diinta islaamka waxa meesha ay kaga jirto iyo maaragtay ahamiyadda ay leedahay. marka insha allahu tacaala sheekhu wuxuu ka hadli doonaa xidhiidhinta qaraabada iyo goynteeda labaduba. marka insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa walaalaha soo xaadiray inay maaragtay ka faa'iidaystaan oo ay si fiican u dhegaystaan. ilaahayna subxaana wa tacaala inuu ku anfaco dhegaysadka ay dhegaysanayaanna ajir badan ka siiyo. marka hadda waxaan kusoo wareejinaya fadiilatu sheekh, falyatafadal mashkuuran. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إلهي حان كبر سبحانه وتعالى خير نو كلميه inta aan nool lahay wada joogiyo kala tagbana
diinteenna iyo adduunyadeenna xifdiyo oo badbaadiyo oo fitanka adduunyada ilaahay naga badbaadiyo mowduuca ama arrinta ku saabsan qaraabada iyo xigtada waxa ay mudan yihiin iyo waxa aan ku habboonayn waxaan filayaa wax cusubna ma aha ee waxaad og tihiin ma idiin sheegaayo isxasuusin weeye min baabi qowlihi tacaala wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin cilmiguna qofka muslimka ee bii'ah ama mujtamac iyo bulsho muslima ku soo dhex weynaaday wax badanna meelo khayr iyo dikri iyo cilmi iyo dacwo iyo muxaadaraad lagu hayo tegay axkaamta sharcigu sida caadiga ah inteeda badan marar badan bay dhagihiisa soo martaa ama indhihiisa akhris ahaan u soo hormartaa maadaama bulshada soomaalidu ay mujtamacaadka muslimka ka mid tahay markii la yidhaahdo dadweynaha guud ee muslimkaana waxay ka mid yihiin dadka waxa innagu aynu nelaanay cilmi dhagoodka shucuubta muslimiinta inta anigu aan arkay ugu badan bay ka mid yihiin maadaama mujtamaca soomaaliyeed uu yahay mujtamacan wax qorin si asalka ahayd ee erey iyo hadal isugu gudbiya masalada qaraabadu marka iyo xigtadu diintii inta badan lagu soo dhaqmayey iyo dhaqankii wanaagsanaa ee bulshada mujtamaceenna soomaaliyeed uu lahaa ee xidhiidhinta iyo ka warqabka iyo soo dhoweynta xigtada iyo qaraabada ahaa xataa mahmahahooda iyo halkudhigyadooda ayay qaybo badan oo ka mid ah ay gashay markay ka hadlayaan xiriirinta iyo dadku say isu mudan yihiin mujtamaca qabali oo baadiyadagu ahaa deegaanka iyo wada noolaanshahana qaab reerreeraa loo noolaa noloshii qaabkaa loo noolaa qofku wuxuu ku qasbanaa qaraabadiisi iyo tolkii inuu ka mid ahaado iyadoo sharcigu waajibiyey bay haddana duruufta soomaalidu ku qasbaysay markaasay waxay dhihi jireen tolkaaga iyo dharkaaga midna lagama dhexbaxo dee qofkuna dharkuu qaba iskama dhigo meel kagama dhaqaaqo oo qaawanaantu ceeb weeye waxay barbar dhigi jireen qofka tolkiisii iyo qaraabadii ka dhexbaxa laga yaabaa marar si qalad in loo adeegsan jiray waxaa alkudhigyadeenna kaleoo ka mid noqday rixim goys waa reero naareed oo ah waxuun axaadiid iyo aayaadka culimmadu sheegaysa in badan intii laga maqlay markii dambe halqabsi iyo halkudhig noqotay ay dad badanoon xadiidi aayad aqoonin markii qaraabo la xumeeye laga soo hadlayo iyada ay soo qaataan oo horaa loo yidhi riximgoys waa reero naareed ay yidhaahdaan arrimaha dhaqankooda iyo suugaantooda ka mid iyo maahmaahahoodu waxay tilmaamayaan mujtamacani muslim weeye wax badan bay maqleen qaraabada ha la wanaajiyo xigtadan ayaan la xumayn si loogu celcelinayo kolba qaab loogu sheegayey bay dhaqankeennii ka mid noqotay marka iyadii unba ama masaa'il qaarkeed qarsoomay ama mid la yar halmaamay baynu isxasuusinaynaa ama qof jidkii saxdahaaba hayay baynu dhiiri gelinaynaa ama qof waxoogay ay la weecatay oo la yar durugtay yaynu baraarujinaynaa oon leenahay dariiq xun baad haysaa ee dib uga soo laabo waa xasuustii iyo waanadu labadaba way tartaa sidaa darteed qof ku jira oo dhiirigelin iyo tirtirsiin u baahan si uu u sii wado u sii badiyo oo ay u noqoto faraska usha waxaa loogu dhuftaa ha dheereeyo iyo qof waxoogay ay ka bariiqatay ama ishalmaamay oo la baraarujiyo oo la xasuusiyo oo la yidhaahdaa sidanaad ku jirta ma saxna isa sax labadaas arrimoodba waxay tilmaamayaan waa nuxurka wadakir fa ina dikraa
tanfacu lmu'miniin qodobada hadalka kelimadayda intaa kadib horu dhaca aan mari doono in sha allahu tacaala waxaa ka mida macnaha qaraabada xiriirintooda maxaa looga jeedaa xukunka xiriirinta qaraabadu maxay tahay qur-aanka iyo sunnadu maxay ka tilmaameen qaabkeebaa qaraabada loo xidhiirinayaa maxaa keeni kara qofku qaraabadii xaqa iyo xusuusta iyo xiriirka mudnayd in xidhiirintiisu ay xumaato asbaabta keeni karta maxaa ka mida maxaase qofka ugu kaalmayn kara inuu xigtada iyo qaraabada xidhiiriyo oo arrintaa uu daryeelo oo tixgelin sameeyo inahaasaan si kooban uga hadlayaa waa ilaa mawduuca qaraabo xidhiirintu haddii qur-aanka iyo sunnada aan nidhaana inta aan gaari karna maanta aan ka hadalno iyadaa saacad iyo barya 2 saacadood keliya aayadihii axaadiista inugu qaadanaya laakiin waxaan la wada gaari karin lagama wada tago saa darteed mid walba wax yaroo kooban maadaama xasuusin ay tahay iyo isbaraarujin mid walba wax yaroo kooban baan ka taaban doonaa ka tilmaami doonaa haddii alla yidhaahdo xiriirinta qaraabada ama waxa ay mudan yihiin 2 erey bay culimmadu ku soo ururiyaan waxay yidhaahdaan kafu ladaa wa badlu nada asaas waxaa waa 2daa qodob in dhibkaaga xigtada iyo qaraabadu ay ka badbaadaan in waxtarkaaga ay arkaan waxaad tarayso iyo had saad u taraysaay dib baynu wax uga tilmaami doonaa laakiin waxtarkaasi wuxuu kulminayaa hadday dhaqaalo tahay hadday talo tahay hadday awood iyo xoog tahay hadday cilmi iyo aqoon tahay hadday duca iyo tahay ka warqab intaasoo dhan baa lagu soo ururiyey badlu nada in waxtar iyo manfaco iyo nafci lagaa helo qaraabada xiriirintoodu qodobka koowaad saa weeye qodobka tiirkeeda labaadna dee waa wax guud muslimiintuba ay kaa mudnaayeen in dhibkaaga laga badbaado nabiguna si guud ugu celceliyey almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi haddii muslimkii guudba saa la yidhi kan qaraabadu waa ka sii mudan yahay qaraabaduna waa inta ku xigta saan tilmaami doonnee aan adiga ahayn hooyadii abbuhu qaraabaday ku jiraan ilmaha dhashayna qaraabadu ku jiraa iyagaa xuquuqda xiriirinta ee badlu nada ay leeyihiin waxtarku axkaam iyo darajaad fara badan buu yeelanayaayoo kala duwan darajaad fara badan buu yeelanayaa oo kala duwan laakiin guud ahaan marka la isku soo celceliyo dadka inaad waxtarta wey oo xigtadii iyo qaraabadii aad waxtarto ood xidhiidhiso dhibkaaga af iyo adinbana naftooda iyo maalkooda diintooda iyo sharaftooda iyo cirdigoodana ay kaa badbaadaan taasi waa macnaha looga jeedo qaraabada xiriirinteeda halkaa waxaa ka muuqanaya haddii 2daa mid aad samayn weydo qaraabo maadan xiriirin haddiiba dhibkaagu gaaro qaraabo qof xiriiriya ma tihid haddii waxtarkaagu gaari waayana qof qaraabo xiriiriya ma tihid haddii aad 2daba isugu dartana dee waa ka sii daran tahay saas darteed qaraabada xiriirinteeda waxaad ka garatay in 2daasi ay qasab tahay dhibkaagoo laga badbaado iyo dheeftaada oo la helo iyo waxtarkaaga haddii waxtarkaaga la waayana qaraabo maadan xiriirin haddii dhibkaaga laga badbaadi waayana qaraabo iyo xigtada maadan xidhiidhin taasi waa qadiyadda koowaad ta labaad xukumka xidhiidhintuna inuu waajib yahay goynta qaraabaduna xaraam tahay culamada muslimiinta intaan ogahay khilaaf kama jiro waajibaadka acyaanta ee fardu caynka ay ka mid tahay xidhiidhinta qaraabada waxyaabaha muxaramaadka kabaa'irka waaweyn bayna ka mid tahay qaraabada goynteedoo la gooyo
علماء كبائر كقري أما ذنوب تواوين وحكا قري أنت عن قران أيوه قرابة قوين تيدا ويكسوا وضع الدارين قرابة قويسكو ويكسوا وضع الدارين ساس درتين قرابة مركز الحريرين أي سنة معها أبال منعها وح عدوه أدسك السماين أن لغوغو لهين وحق فرض واجب قرابة حكتدو أي كوليهين لنا عكلنا وعبادة الرب دوانيسو أجر كغدونيس صار دتت عبادات كواجبات كمركات سماينيسو maaha waxa la eegaya qaraabadu maxay adiga kugu sameeyeen adigu ilaahay baa kugu adoonsaday oo inugu adoonsaday dhamaanteen inaan qaraabada xiriirino sida salaada iyo soonka iyo zakada la inoogu adoonsaday salaadu dadkii jamaacada haday waajib kugu ahayd qolyihii masaajida ay xumeeyay oo masaajidba ku tukan maayo garawsho malaha sida taniba anigu xiriirin maayo qaraabadu iyaga ay gooyay ama ay xiriirin waayay garawsho uma aha waajib ilaahay kugu waajibiyay inaad ku caabudo inaad uga tagto garawsho kuma laha sadarteed qof walba waa inaan xasuusnaana markaynu xigtay iyo qaraabo xiriirinayno kaliya ma aha masalatu ihsaan iyo abaal maaha masaladu masala waajib iyo cibaado aad gudanayso ilaahay ka rabo way hadaad sameyn weydana aakhira lagu la xisaabtami qaraabada marka aad gooynaysana waxaad ku xisaabtami dambi weyn inaad gashay oo nusuusta quraanku ku tilmaamaysa saynu arki dooniyo sunnadu inay duruubta naarta lagu galata saas darteed labadu midna intaan ogahay si guud ahaaneed khilaaf kama jiro in xiriirinta qaraabaduna waajib tahay qof kasta qaraabadiisa inuu xiriiriyo gooyinteeduna ay dambi tahay kabaa'irta kamida qodobka saddexaad xukunka waxay culimadu isugu raacayaan waajibnimada xiriirinta iyo xaraam dambi weyn inay tahay qaraabo xumayntu waxaa sababay quraankuna aad buu farabadan yahay sunnada nabiguna aad bay u farabadanta kitaabka iyo sunnadu laba qaab bay labaduba inoo faraan mar waxaa layna faraa xigtada inaan xiriirino aynu waxtarno aynu taakulayno aynu dhibka ka dayno baa mar layna faraa marna waxaa la inooga digaa inaynu qaraabada goyno oon xigtada iyo qaraabada xumayno oon xarigooda jarno oo xaqa inagu lahaayeen aan ka soo bixi weynana mar baa la iska reebaa alfaada nusuusta kitaabka iyo sunnadu marna lafdiga raxim bay isticmaalaan marna ereyga lafdiga qaraabay isticmaalaan mar si guud bay u duuduubaan oo qaraabo iyo raxim bay yiraahdaan marna way magacaabaan qaybo kamida la inoo tiriyaa quraanka waxaa kamida ilaahay subxaanahu wa tacaala suuratu al-anfaal aakhirkeeda markuu ka hadlayo wuxuu yidhi waaladiina aamanuu min bacdu wahaajaruu wajaahaduu macakum faulaa'ika minkum waulul arxaami bacduhum أولى ببعض في كتاب الله كتاب كلاي هدي لا ايغو dadka raximkee wada dhashay baa ismudan oo isku haboon waxa jiray islaamka bilowgiisii hore dadku isu dhaarasho iyo is-sheegad ama heshiis iyo saaxiibtinimo dheer bay isku dhaxli jireen oo qofku markuu dhinto ka kala ku dhaxli jiray aayadani waxay ka mid tahay aayaadka xukunka lagu nasakhay si kastoo shirkadu noqotaan si kastoo daris u noqotaan si kastoo saaxiibo u noqotaan si kastoo dhaqan iyo qaaraan idinka dhaxeeyo qofka dhintay isdhaxal iyo xaqiisii yaa mudan marka la yiraahdo ulul arxaami bacduhum awlaa bibacd iyagaa isku habboon saa darteed qofka markaad dhimato xoolahaaga dhaxalkooda iska leh dadka kale oo dhanna ka mudan macnaheedu waxay tahay xoolaha uu xaq buu ku leeyahay waa qofkii mudnaa markaad noolaydna
inaad xoolahaaga iyo hantidaada iyo waxaad awoodo wax ka siisood wax kaga xusta mudnaa waay marka ilaahi subxaanahu wa tacaala aayaddii suuratu nisaa bilowgeeda ahayd markuu yaa ayuha nnaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إلهي aad wax isku weydiisanayseen ka baqo xuquuqdiisa ilaaliya والأرحام واتقوا الأرحام qaraabadana xuquuqdeedii iyo waajibaadkeeda ka baqo iska ilaaliya inaad dayacdaan ama aad ku xadgudubtaan raximka ka baqo ilaaliya waayo waajibku kugu lahaa haddaad gudan weydana waa dembi weyn haddaad isagii goysood xiriirintiisii ka soo bixi weydana waa dembi weyn oo lagu naar mudanayo haddaba xaqii ilaahay baa si guud xaqii qaraabadana lagu lamaaneeyey oo ilaahayna ka cabsadaa la yidhahdo wax isku weydiisataan raximkana ka cabsada baabkaas waa baab khatar ah haddaad waajibaadkiisa ka bixi weydo oo dayacdo baab adag weeye iska ilaaliya baabka xigtada iyo qaraabadu marna ilaahi subxaana wa tacaala si guud buu u tilmaamay wanaagga ay leedahay waxaa ka mid ah aayaadka kale faaati da alqurba xaqahu waalmiskiina wabna asabiil dalika khayrun liladiina yuriiduuna wajha allah qaraabada iyo masaakiinta iyo musaafiriinta xaqooda siiya laguma dhihin ku galladayso fadli iyo ixsaan samee laguma dhihin miskiinku xaq buu kugu leeyahay musaafirku xaq buu kugu leeyahay qaraabadii iyo xigtaduna xaq bay kugu leedahay waxa aad siinaysaa haddaba waa xaq ay leeyihiin wey faaati da alqurba xaqahu xaqiisa sii inaad saa yeesho dalika khayrun liladiina yuriiduuna wajha allah wejiga ilaahay aakhara dadka doonayay ridihiisa taa inay yeelaan baa u khayr badan aayaddaa waxaa la mid oo ku dhow tan qofkii sameeya inay u khayr badan tahay baa la sheegay mid ku dhow waxaa jirtaa waaati da alqurba xaqahu waalmiskiina wabna asabiili walaa tubadir tabdiira ina almubadiriina kaanuu ikhwaana ashayaaiin xoolaha ku ciyaarin laakiin qaraabada iyo masaakiinta iyo musaafiriinta xaqooda sii halkaa waxaa laga tilmaamay wixii aad masaakiin siiso iyo wixii aad musaafiriin mudan siiso iyo wixii aad xigtiya qaraabo siiso xoolo la daadiyey ee tabdiir lagu ciyaaray ma aha walaa tubadir tabdiiran waxa loo keenay waxaa ka mid a in lagu yidhaahdo kuwaa waxsii xoolahana ha ysaga ciyaarin kuwan waxaad siisay iyo abwaabulkhayr ku bixiso xoolaha ku ciyaar maaha daartii aakhiraad geysanaysaa waajib rabbi baad gudanaysaa xaq lagugu lahaa baad iska ridaysaa haddii qaraabada la gooyo laba meeloodba qur-aanku wuxuu ku tilmaamay qaraabogoyntu dhaqan muslim maaha wax muslim laga filana maaha waa dhaqan gaal iyo inaan ilaahay aakhira rumaysnayn dhaqankood wey fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlard watuqaطicuu arxaamakum ma laga yaabaa ma mudan tahay haddaad diintan ka leexataan oo rumaynta ka jeedsataan inaad laba samaysaan inaad adduunkana fasaadisaan ood xumo ka shaqaysaan raximka iyo xigtadana goysaan soo ma dhici karto haddaba dhulkoo la fasaadiyo iyo raximkoo la gooyaayey waxay ka dhashaan oy midho u yihiin jidka ilaahay oo laga jeedsaday xuquuqdii iyo waajibaadkii ilaahay faray oo laga leexday dhaqan muslim ma aha dhaqan gaal wey mar kale ilaahay wuxuu leeyahay isagoo gaalo tilmaamaya waaladiina yanquduuna cahda allaahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna maa amara allaahu bihi an yuusal wayufsiduuna fi اlard gaaladu waa kuwa axdiga iyo ballamaha allah ay la galeen bay jebiyaan oo ilaahay markuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu bala shahidnaa calaa anfusina ay yidhaahdeen bay ka tallaabsadeen oo shirki bay galeen kadib maxay sameeyeen oo kaloy sameeyeen wayaqطacuuna maa amara allaahu bihi an yuusal wixii in la xidhiidhiyo ilaahay uu amroo qaraabadii iyo xigtadiiyaana waa goynayaan
haddaba xigta iyo qaraabo la gooyo dhulkana way fasaadinayaan waa labadii faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi اlardi watuqaطicuu arxaamakum baa waxaa la mida wayaqطacuuna maa amara allaahu bihi an yuusala wayufsiduuna fi اlard maxay mudan yihiin ulaa'ika lahum اllacna walahum su'u daar naclad ilaahay baa ku dhacday daar xun oo aakharo cadaab ana way leeyihiin haddaba adigoo muslim ah oo daarta aakhare cadaab ka baqaya waajibka rabbina rumaysan ma habboonoo lama ogola dhaqan gaal inaad yeelato qaabkii gaalada aad u dhaqanto caadadii gaaladu ay ku saamayso inay ku saamayso looma baahna aayadaha qur-aanku waa fara badan yihiin oo waalidiinta qaar baa ka hadlay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan iyo samihii loo samaynayo o dhan qaraabaday kow ka yihiin ilmaha dhashay qaraabaday kow ka yihiin nabigeennana sala allahu alayh alih wasalam axaadiis badan buu marna qaraabada iyo raximka xidhiidhintooda inugu faray marna inooga digay xigtada iyo qaraabada xumayntooda iyo goyntooda in cadaab iyo naar lagu gelayana uu inoo sheegay nabigeenna sala allahu alayh waalih wasalam waxaa ka mid ah nabigeenna xadiis saxaabiga abu ayuub laga warinayo oo bukhaari iyo muslim soo saareen yaa wuxuu ku leeyahay nin baa nabiga u yimid oo yidhi rasuulka ilaahay uu ii sheeg akhbirnii bicamalin yudkhilunii aljanna rasuulka ilahi waxaad ii sheegtay camal aan janno ku galo nabigu calayh salatu wasalaam waa u soo gaabiyo wuxuu yidhi tacbudu llaha walaa tushrikuu bih horta ilaahay caabudo waxba ha la wadaajin markuu cibaadadii ilaahay kala hadlay oo tawxiidka ahayd iyo caqiidada ahayd buu cibaadadii camalka iyo dhaqanka ahaydna u raaciyo wuxuu yidhi watuqiimu الصalaata watu'ti الzakaa sakadana bixi salaadana tuko waa un cibaadadii qayb ka mid a watasilu الraxim qaraabadana waad xidhiidhin tawxiidka iyo salaada iyo zakadu waa cibaadadii ilaahay waxa xigee labeeye janno lagu gelayo in lagu lamaaneeyo waa qaraabadii iyo xigtadoo la xidhiiriyo nabigu tilmaamay sala allahu alayh alih wasalam xadiid abu hurayre laga wariyey oo bukhaari iyo muslim ay soo saareenna nabigu wuxuu ku tilmaamay iimaanka ilaahay iyo aakhiro la rumeeyo iyo qaraabada la xidhiiriya ma kala hadhaan wuxuu yidhi man kaana yu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir falyasil raximah qofkii ilaahay iyo maalin aakhiro rumaysan qaraabadaa xidhiidhiyo haddaba ilaahay inaad rumaysan tahay aakhirana xisaabtan rumaysan tahay baa keenaya oy ka dhalanaysaa qaraabada inaad xidhiidhiso maxaa yeelay allah haddaad rumaysan tahay waa xaq iyo cibaado waajib oo iskugu leeyahay qaraabada inaad xidhiidhiso haddaad aakhiro rumaysan tahayna xidhiidhin la'aanteedu naar baa lagu galaa marka qofka rumaysan aakhariya naar ee ka cabsanaya ilaahayna xaq iyo waajib cibaado inuu ku leeyahay rumaysan ee garawsan falyasil raximah qaraabadaa xidhiidhiyo mar kale nabigeena sal allahu alayh ali wasalam xadiis bukhaari iyo muslim soo saareen oo caaisha radi allahu canha laga warinayo waxa ay ku leedahay alraximu mucallaqatun bilcarsh raximka iyo xigtanimadu qaraaba cashiga ilaahay bay haysataa ay ku dhegan tahay waxaana ay leedahay man wasalanii wasalahu allah waman qaطacanii qaطacahu allah qofkay xidhiiriya allah xidhiirinayo xariggiisa wanaajinaya qofkay aniga i gooyana allah xariggiisa goynaya allah xarigga hadduu gooya qofka yaagtiisa jannana uma taal naarna waa la hubaa haddii nebi maxamed leeyahy sala allahu alayh ali wasalam qofna jannada camalkiisa kuma gala buu yidhi ilaahay inuu naxariis geliyo maahane saxaabadu iyaga wayba ka garaabeen laakiin su-aal baa ku timid nabiga oo ilaahay darajadaa siiyey dadaalka camalka arkeenna sameeya oo habeenkiisuu salaad u taagan yahay lagu intay barbararaan barbarar dildillaacaan inaan salaadna ka celinaynin dadaalkiisa ay arkeen qaaluu walaa anta yaa rasuula allah xataa adiga camalkaagan kuma geli kartid miyaa qaala walaa ana ilaa an yatahammadanii allahu biraxmatih xataa camalkaygu janno ima geyn kara naxariis ilaahay idiigu geeyo maahane haddii nabi maxamed saalih alayh salaam qofka la yidhahdo man qaطacanii qaطacahu llah xarig ilaahay qofku u jaro iyo see janno ku geli
si uu janno ku gaadha ma laha saas darteed macnaha xadiidkaasna wuxuu tilmaamayaa qofka hadduu qaraabadii iyo xigtada gooyo xadhiggii ilaahay ee uu janno ku mudan lahaa iyo naxariis isagaa jaray waxa soo harayna dadku meel saddexaad ma jirtee fariiqun fi ljannati hadduu noqon waayey wa fariiqun fi saciiri baad noqoni qolada naarta gelaysuu noqonaya walciyaadu billaah arrintaa nabigu intaa kale kagama tegine dardaaran buu saxaabada la dardaarmi jiray markuu saxaabada la dardaarmayo ay dardaaran dhahaan wuxuu kula dardaarmi jiray waxaa ka mid ahaa qaraabada xidhiidhi abu darin alkhifaari radi allahu canhu wa ardaa xadiis saxiixoo laga wariyey oo imaamu axmed ibni xibbaan iyo warinayaanbu wuxuu ku leeyahay awsaanii khaliili nabiga saaxiibka ahaa aad saaxiib ii dhowahaa aadna aan ugu dhowaabaa ii dardaarmay xadiidku wuu dheeraaye wax fara badan bay ahayd waxaa ka mid ah markaa wa awsaanii bisilati alarxaami wain adbarat wuxuu ii dardaarmay qaraabada inaan xidhiiriyo xataa iyagu dhabarka hadday ii duwaan hadday xidhiirin waayaan waxtaraan ka waayo dhibkooda ka badbaadi waayo xataa qaraabadu hadday i gooyaan anigu inaan xidhiiriyo ii dardaarmi jiray nabigu sala allahu alayh ali wasalam wa awsaanii bisilati araximi wain adbarat qaraabadu dhabarka xataa hadday ii duudo ani inaan xidhiiriyo ii dardaarmay nabigu sala allahu alayh wasalam xadiid kaleo bukhaari iyo muslim laga wariyey ay wariyeen anas ibni maalik radi allahu canhu wa ardaa isagana nabigu wuxuu sheegay waxa qaraabada loo xidhiirinayo aakharana jannaa lagu galaa adduunyadana waa lagu bulaalaa cimri dheer iyo ceesh waasaca qaraabo la xigto la xidhiidhiyaa iska leh xadiidkaanaas nabigu wuxuu leeyahy man axabba an yubsata lahu fii risqih wa yunsa'a lahu fii aharih riwaayadka qaarkood fii ajalih falyasil raximah qofkii doonayee jecel ilaahay cimriga inuu u dheereeyo risiq waasacana siiyo xoolaha u badiyo qaraabada iyo xigtada ha xidhiidhiyo dee waxaa isbitaallada aynu u daba cararayno een isu daba ordayno dhimasho ka carar baa kow ka ah innagoo og inaan dhimanayno walidaalika abulcitaahiya waa ku dhihi jiray wa min cajabi اddunya yaqiinuka biاlfana wa annaka fiiha lilbaqaa'i muriidu adduunyada waxaan kula yaabay waxaa ka mida waad og tahay inaad dhimanoodan joogaynin haddana had iyo habeen waxaad ku dadaali inaadan dhiman waad joogtaad had iyo habeen u xusul duuban tahay ood u ordaysa ad u gundan tahay tol iyo qaraabana kula gurmanayaan wa maca daalika yaqiin waxaad u hubtaa kollaba inaadan dunida joogayn dunidiisaa nolosha aynu u jeclayn waa khatar qofka ugu cibaado badan ee inoogu fiican hadday naftiisa waxoogay khatar uu dareemayo ajal soo dhowaato nolosha wuu isku dhejin waa dabci aadamo ahoo aan ku xirnayn ma qof saalixaa tahay oo cibaado badan mise ma tihid waa dabci bashar ku leeyahay weeye in nolosha aad jeclaata ceeb maaha marka jacaylku inuu xaaraan ku geliyaa dembi ah nabiyullaahi muusa calayhi salaam markii ajashiisii dhammaatay waa kii malakulmowdka loo soo diray waa u yimidoo wuxuu yidhi muuse malakulmowd baan ahay ajashaadiina way dhammaatay inaan nafta kaa qaadaan kugu yimid ba hal dharbaaxuu ka soo gooyo il buu fujiyey waa geeridu naxdinta ay leedahay wey rabbigii buu ku noqdo wuxuu yidhi addoonkaad ii dirtay nin dhimasho raba maaha waxaa yidhi ku noqo waxaa ku tidhaahdaa dibigan dhogogka gacanta korkiisa saar inta gacantaad u qabato oo timaa marka la tiriyo tintiiba hal sanaa lagaaga dhigi sidii baa muuse lagula soo noqday markaasuu yidhi kadib maxaa ka dambeeya marka la tiriyo wax la tiriye kow la yidhi koobane maxaa ka dambeeyde waa dhiman baa leelata lagaa qaadi bas wuxuu yidhi hadda raalli baan ku hay laga qaado nebi aadam calayhi salaam markii durriyadiisii la tusay mid dhalaalaya waa kii arkay yidhi kan muxuu yahay waa wiilkaa ilmaha ka midoo nebi daawuud la yidhaahdaa la yidhi wuxuu yidhi cimrigiisa waa imis waxaa lagu yidhi waa 40 ama waa 60 wuxuu yidhi 100ka ha loo dhammaystiro cimrigayga ha layga gooyo waxaa la yidhi waaya cimrigiisa waa yaqiinee markii ajashii dhammaatay
baa malakul mawd yimid wuxuu yiri cimrigaaga waa dhamaaday isna uu tirsanay warmay intaas ay dhiman buu yiri wasoo kaad wiilkaaga Daawud siisay baa lagu ku yiri waxaan siiyay ma jira buu fanasiya aadamu wa nasiya dhurriyatuhu wajahada aadamu fajahada dhurriyatuhu aadam waa halmaamay ilmihiisina halmaankii buu ku dhalay aadam wixii uu bixiyay waa diiday tiibaana dabeecad aadama ah waa khilqa ilaahay ku abuuray bal ibraahim aadam oo janna laga ku jiray oo ibliis ilaahay hortiisa ugu dhaartay oo ilaahayna uga digo yiri ninkan iska ilaali meeshuu ka soo galay waxay ahayd cimriga uu sooma koobno 1000 sano ma aha geedda hadaad cunto waligaaba dhiman maysid geedda asbaabtii uu cunayta ahayd hal adulluka ala shajarati alkhuldi wa mulki la yabla shajara hadaad cunto waliga aad noolaanood waari haddaba dhimashada nacaybkeedu waa tabiicad aadamaha haddaba in yaroon maalin haddii lagu dib dhigo ama maalin gelinkeed lagugu daro ama toddobaad iyo bil lagugu daro aad rabto qaraabada xiriir in xoolahaaga iyo risqaaga ilaahay badiya haddaad rabtana qaraabadii xigtada xiriir cabsida ilaahayna waa ku jirtaa riwaayada ibn Hibbaan baa fi sahihi falyattaqillaha walyasil rahimah ibn Hibbaan baa ku daray rahimahullahu ta'ala waxa kaloo nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wa sallam inuu ka digay qaraabada in la gooyo xadiiska Jubayr ibn Mut'im ee Bukhari iyo Muslim wariyan waakilaha la yadkhulu al-jannata qati'un qaraaba goys janna ma galo oo halka maamada Soomaalidu ka timid rahim goys waa reer naareed la yadkhulu al-jannata qati'un taas bay mahma iyo halqabsi u bedeleen markay in badan maqleen marka la nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa ka sugan inuu leeyahay xadiis abi Musa al-Ash'ari iyo ibn Hibbaan iyo qeyrkii warinayaan saddex buu sheegay janna inayna gelin saddex janna ma galaan buu mudmiru khamrin wa qaati'u rahimin wa mu'minun bi sihrin qof sixir rumaysan janna ma galo qof qaraaba goys ahna janna ma galo qof daroogaysta ahna janna ma galo saddex janna ma galaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam labada kale waa sidooda iyaga laftoodu waa badan yihiin oo dunuubta ay kamid yihiin hadda qaraaba goys janna ma gala buu labada xadiis ba nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis abi Musa al-Ash'ari iyo xadiis Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhuma wa ardaahuma halka waxaad ka garatay intaasaynu kaga bixin nusuusta kitaabka iyo sunnada inay aayaad iyo axaadiis badan fareen qaraabada in la xiriiriyo fadliga iyo ajirka iyo faa'iidada aakhiriya adduun ba laga helina tilmaameen in la gooyana ay ka digeen cuquubada iyo dambiga ay aakhira leedahayna ay sheegeen aayaadka iyo xadiiska nabigeenu ka sugan sallallahu alayhi wa sallam inta kaga gudbo su'aal baa iman karta waa ay qaraabada la xiriirinayo culimadu qaabab badan bay u cabiraan laakiin waxaan dhihi karnaa qaraabadu asaas iyo saldhig waxa uu ah laba eray oo la yiraahdo asaba iyo dawul arham asaba iyo dawul arham midna xagga aabahay tilmaantaa midna xagga aabihi xagga hooyadaba way tilmaantaa dawul arhamku waa inta hadday rag iyo dumar kale yihiin guur iyo xarig aan isu qaban karin waay waa laba isdhashay kow way ka yihiin laba wada dhalato walaalo ahna ama aabba kaliya ha wadaagaan ama aabbiyo hooyaba ha wadaagaan ama hooyo kaliya ha wadaagaan labada walaalaha ahna dawul arxaamka ay ku jiraan waxaa dawul arxaam ku jira labada isu adeerka ah ama isu abtiga ah ama isu eedada ah ama isu habaryarta ah isdhalitaankii waxaa soo gelaya dee labada isdhashay ee kowga ah darajada labaad ta saddexaad iyo wixii ka dambeeya o dhan
aabbihii awowgii hooyadii ayeydii ilmaha dhashay waxay sii dhaleen kuwa asal iyo farac waaye iyagu lafdiga casabana way soo galaan marka la yiraahdo yaa casabo looga jeeda dadka dhaxla arxaam haddii la yiraahdana way soo galayaan xawaashidu waa dabaqada saddexaad ee ugu fara badan asalku ma fara badna faracuna intaysa soo gaadhaay maadu ma badato xawaashidu waa dadka aan ku dhalin adna aadan dhalin ee dhinacyada ka ah walaalaha adeer eedo abti habaryar iyo wixii lamida kadib waxaa imanaysa ilma adeer ilma abti iyo wixii la midka ahaa haddii la yidhaahdo dawul arxaam eedada iyo habaryarta iyo abtigu waa ku jiraan haddii casabaad iyo ama ahl miiraas dadka dhaxalka la yidhaahdana kuma jiraan saa darteed baa asaxu aqwaali intaba way soo gelayaan kadib bay qaraabadu noqonaysaa darajaad say u kala dhowdahay bay u kala mudan tahay marna say u kala baahan tahay bay u kala mudan tahay saydu dib ka tilmaami doono laakiin qaraabada la xiriirin ma iyo marka lagu yidhaahdo culimmada qaar baa yidhi 4 aabbo awowga afraad intaad isugu timaadaan wey ka koobaad ka labaad ka saddexaad ilaa 4 waaye laakiin sidaa ma aha nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa dadkii wax u dhalay maariya alqibtiya maariya alqibtiya qoladan qibtiga la yidhaahdo ee reer masar bay ahayd qolyahaasay ka soo jeeday muslimiintu la dardaarmaya marka nabigu calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood oo masar muslimiintu hadday gaaraan oo futuuxaadka islaamiga loo aado yaa wuxuu ka dardaarmay dadka in la wanaajiyo wuxuu yidhi fa inna lahum raximan xigti iyo qaraabtinimay inugu leeyihiin maariya darteed marka waxaa soo gelaya xadiidka qisada waxaa ka muuqanaya waxaa soo gelaya qaraabada xiriirinta mudan gabadha iyo reerkooda iyo ninka iyo reerkiisa markii reer la noqdaay qofna cirka kama soo dhicin gabadhu reerka iyo xigtada ay leedahay waa raximka xiriirinta mudan iyadana waxaa ku soo kordhay intii hore ninkan ay guursatay ee reerka noqdeen iyo xigtadiisii iyo raximkiisii baa soo biiray reer marka la noqday marka raximku 2 dhinac buu ka yimaadaa midna xagga ninkuu ka yimaadaa midna xagga haweentuu ka yimaadaa labaduba waa raxim qaraabadu haddaba curfigaa xadaynaya iyo taagta iyo tabartaa xadaynaysee cid kastoo wax kuu galo ama ayay ha kuu gasho ama awow dhow iyo fog ha kuu galo qof kastood wax wadaagtaan xad go-an looma samayn karo xadda go-an innaga curfigeennu waa ka mid xigtadiiyo qaraabada xadu samayntu qoysaskeennu isku mid maaha qoyska tiro yar waa xigtiya qaraabo iyagoo kala abtir fog qoyska ilaahay badiyee fara badanna dee inta dhow baaban la gaaraynino in kuwaa kale isaga dhowdihiin bay xiriirintu ay adkaanaysaa oodan gaari karaynin mar dad wada jooga xiriirinay kala mudan yihiin dee dadaan wada joogin oon dal iyo deegaanba wadaagin aanay kala mudnaanaynin mar dad baa baahan fog kuwa dhowsa baahi ma qabaan kuwa fog baa mudanaya saas darteed qaraabada xaddeeda haddii la yidhaahdo wax tiro go-an u sameeye waxaan garanayaa bacdu a'immati salaf oo yidhi 4 awow weeye laakiin waxaa idiyo xadiid oo tilmaamaya ma laha xigtadiiyo qaraabadu hadba waa qof kasta ood wax isu kiin galaan wey innaga soomaalidu qoys yar weeyo haddii inteennaasi aynu isu sheegno awowgeen iyo ayeydeen iyo aabbaha yaa dhalay iyo awowgaa iyo ayeydaa yaa dhalay iyo adeerkaa iyo abtigaa yaa dhalay haddaan isdhiraano
inta badan meelun baa dalaq la iska soo dhihi walidaalika islaamnimadii baa dheere dadku waa wada xigtiya qaraabe ha la isxidhiidhiyo sida qaraabada loo xidhiirinayo haddaynu wax ka tilmaannana waxaan leenahay qaraabada xidhiirinteedu xoolo la siiyey keliya maaha mar waxay noqotaa xoolo iyo dhaqaale iyo ixsaan infaaq inaad ku bixiso waatida alqurbaa xaqahu iyo nusuustii badnaydeen soo maraynayna qayb badan waxay tilmaamaysay ixsaanka waxaa kow ka ah iyo xidhiidhinta qaraabada hantida iyo xoolaha aad leedahay waxbay ku leeyihiin inaad wax ka siiso waxaa ka mid a qaraabada xidhiidhintooda inaad booqato ood soo siyaarato qaar baa waayeelah qaar baa socodkiiyo dhaqdhaqaaqu dhibayaayo ay duruufi ku xeeran tahay inaadanuun horay isaga sii socone wakhtigaaga qaybo ka mida aad ku darto inaad qaraabada soo salaabto guryahooda ugu tagto sidee la yahay aad tidhaahdo aada xogtooda iyo xaaladooda booqatood ogaatana waa qayb xidhiidhinta ka midoo lagaa doonayo waagi hore waan ku fiicnaan jirnay laakiin magaalooyinka waaweyn intii la soo galay labadii isu dhoweyd baan kala warqabin dee waagi hore tuulooyinkaan joognay annaga waxaan soo gaarnay iyadoo ninka odaygii casarkii markuu tukado subaxii markuu tukadaan leeyahay intaa salaada subax markuu ka soo baxo waxoogay wardi intuu akhristo uu xagga kaga soo bilaabo warree hebel saa ku barideen sidee la yahay xalay ma nabad qabteen markuu qoyskaa ka dhammaada ka kalu u tallaabi jiray haddana labada albaabee isku xigta baan salaamu calaykum islihiinoo iskaba warqabinba qaraabo iyo xaafad kale dad degan iska badaaye runtii waa mixnad soo korodhay qaab nololeedka magaalada waxaa ka mid ah qof weji furfuran inaad tahay qaraabada jid baad isaga hor imanaysaan guri baad isugu imanaysaan way kuu imanayaan way ku mudanayaan dadku maal lama deeqsiiyo laakiin weji furan baa deeqa haddii xaqa muslimiinta oo dhan waxyaabaha ugu qiimo badan ay kuu leeyihiin ka mid tahay walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin waa sadaqaadkay ka mid tahay inaad weji furan kula kulanto qof weji furan oo laab furan oo soo dhoweeya oo markay u soo galaan indhaha aan u guduudin gafuurkan aan u taagay inaad tahay wey oo maanta adugu haddaad qof soo salaanto indhahana kuu guduudiyo gafuurkana taagoo cadha iyo xanaaq muujiyo ama gabadha sii jeediyo inuu dhibsanaya aad aragto imaatinkaaga iyo salaantaada dee berri kuwa noqon maysa waa naga dhaafaadii waxan saas darteed xidhiirinta qaraabadu weji furaanta soo dhowayntaa ka mida waxaa ka mid a qaraabada xidhiirinteedu dadkooda jiran inaad booqataa ka mid a mid baa isbitaal galay qof baa xanuunsaday qof baa wax ku dhacay dee booqashadu goorma iman dee inaad ka warqabto wey haddaadan kaba warqabin kii meel agtaada ah ku sakaraadayey inuu sakaraaday inuu dhintay aadan waru haynin waa dhib wey halka nairobi oon joogno baa laba nin oo qaraabaa mid xanuunsaday mudduu xanuunsanaa minay qaraabana yihiin saaxiibna yihiin baa waa dambe markuu roonaaday ku yidhi war nin xageed ka dhacday horta markaasu wuxuu ku yidhi nin yahow haddii la dhimanayo xataa dhinto xataa la is-aasi maaye soo maaha markaasuu nin yahow waa saxe laakiin inaad dhimanaysa waa inaad soo sheegto yidhi inaad dhimanaysa seen ku ogaan anigu waa inaad soo sheegto dee qof jiran see kuugu soo sheegi inuu jiran yahay wuuba yaallaaye qof isbitaal galay iyo qof guri ku xanuunsan iyo qof jiran iyo qof wax ku dhaceen adigaa laga rabaa qaraabadii iyo xigtada inaad ka warqabto si aad u ogaato yaa xanuunsan ood soo booqato soomaaliduna waxay waxbadan sugaantooda ku dareen maraad xanuunsan tahay qofka ku soo booqda qofku u caafimaada waad aragteen waa sad iyo wax siin wey adoo xanuunsan oy qandho ku hayso markii dadka inta lagu yimaada lagu sheekeeyo sidii neef adhi ahoo roob iyo biyo ku da-ay ka gilgishayn baad noqon oo biyihii ka qallaleen qandhadiiba way kaa duuli markii lagaa dareerana waran iyo qandhon baa laguu taagi
waa booqashadu waxtarka ay leedahay iyo inay sad iyo waxqabad tahay baad ka garan waxaa ka mid ah xiriirinta qaraabada munaasabadahooda inaad la qaybsato farxadda inaad la qaybsato wixii muruge iyo dhib ee ku soo kordhana aad la qaybsato ood ka qayb gasho munaasabadahooda hadday guur tahay hadday ilmo dhashay tahay ama ha kuu yeeraan ama adiguba aad soo raadisid maalinkaad munaasabadaha farxadda leedahay qaraabada intii ku soo doontee kaala soo qayb gashaay saamayn badan bay ku yeelaan qalbigaaga iyo xiriirkaaga maalinkaad murugaysantahe wax kugu dhaco qofkii tacsidii iyo qaraabada kugu yimaada iyo waxqabad iyo garab istaag kugu yimaadana noloshaada iyo xiriirkaad la leedahay saamayn badan bay ku yeelaan marka xiriirinta qaraabada waxaa kaloo ka mid ah hadday geeri timaaddo inaad meydka la aasto maxaa kaloo laysu qaban lahaa lan aakhare dhinac laysu geli maaye waxaa ka mid ah haddii qaraabadii iyo xigtadii khilaaf soo kala dhexgalo hadduu khilaaf soo kala dhexgalo inaad heshiisiiso inaad islaaxooda ka shaqayso inaad labadii isku xun nabadooda ka shaqayso waa xaqa xigtadii iyo qaraabadu ay leedahay innagu qaraabadii iyo tolka laba mushkiladood baa ina haysta in innaga mid ihi si xun bay ugu dhex jiraan oo qaraabada iyo tolkii xidhiidhi ka jiran booqo munaasabaadkooda ka qaybgal kuwoodii iskhilaafay heshiisii si xun bay ula taraartay iyo qaab qabyaaladeedu xumaan iyo dhiba inna intuu sidaa ka baqay yuu bannaanka ka istaagayoo nag ha isku dhahaan buu yidhi qaraabadaadu nag ha isku dhahaan waxaa ka mid a qaraabada xiriirinteeda in dhibkaaga ay ka badbaadaan oo afkaaga iyo xantaada ka badbaadaan caydaada iyo waxyeeladaada ka badbaadaan adinkaaga ka badbaadaan af iyo adin inay kaa badbaadaan baa ka mid a qodobka xiga wakhtigu waa dheeraadaan u malaynayaaye waxyaabaha sababa in qofku qaraabada gooyo ama xiriirkoodii uu hayn waayo asbaabo badan baa keena waxaa ka mid a waxaa keena qofku inuusan axkaamtanba aqoon fiican u lahayn inuusan garanayn waajibka ay ku tahay iyo qaraabada oon la xidhiidhin dembiga ay leedahay iyo ciqaabka aakhare ka dhalanaya inuusan qofku aada u garanaynin oosan aqoon u lahayn waa qodob koobaad oo sababa qaraabadii qofku inaanu xidhiirin xumaato kalaba kama aha laakiin maba oga dembi inuu ku jira qaraabadan uu gooyey ajirka uu ka heli lahaana ma garanayo inta aan garanayo xigtiya qaraabo la xidhiidhiyo xoolo la siiyey anuu qof u xoolo waayo u faqriyay garan maayo laakiin dad badan oo ku tanaaday oo ku taajiray baan garan dad ku tanaaday oo ku taajiray oo badan baan garan dad qaraabada markay gooyeen hantidii iyo xidhiidhintiina ka waayeen xoolihii dhaafeenna waan garan laakiin qof xoolo iyo qaraabo xidhiidhin u xoola beelay aanu garan maayo saas darteed qofkani waxaaba laga yaabaa xoola bixin inuusan diidanayn laakiin waajibba inay tahay oo ay cibaado tahay oo ay ka tegitaankeedu dembi iyo xaaraan weyn tahay oo isdembi weynba ku jiroo janno geli maysid lagu yidhi inuusan garanayn baaba qofka dhici kartaoo taasi way sababi kartaa inaanu qaraabo xidhiidhin waxaa dhici karta inuusan qaraabadaba aqoonin oo jahli nooc kale ah gaar ahaan ilmaheenni magaalada ku koray subaxii iskuul baynu u dirnaa ilaa uu weynaadoo duurkiisaa maroo jaamacad ka soo baxo subax ilaa galab waynu mashquulinaa qaraabo uma geyna qaraabana ma barro saa darteed muxuu xidhiidhin maba yaqaani waxaa la mida ilmaha qurbaha ku dhashay oon dadkoodii iyo ahalkoodiiba dhex joogin waxay culimmadu in badan u yidhaahdaan war ilmaha fasaxyada waddamadii geeya qaraabadooda u geeya waxaad arkaysaa waalid ilmihiisiibuu haystaa ilmahan weligii hooye ayeeye ma arag awowna ma arag adeerna ma arag
abtina ma arag eedana ma arag habayarna ma arag weligii waxaan laga sheekaynayo hadal meel dheer ka soo yeerayay ka mid tahay maalinkii dambe u iman hooyadii oo murugaysan hooyo maxaa dhacay buu dhihi ka naxe waxay dhihi hooyaday baa dhimatay inna danqi mayso oo soore buu dhihi marka intaasayba kaga dhantahay boolesana sababtoo amaba yaqaanba Soomaalidu waa kay horey u dhaheen geeridu geel jiriye cid aan la garanayn bay ku fiican tahay ninka maba garanayaaba qaraabo ilmaha qurbaha jooga waxyaaba la yaabay aad la yaabay qacdayga waxaa ka mid ah dee markii dhowr qoys meesha ku degan tihiin wixii haween oo dhanna waa habar yar wixii rag oo dhanna waa adeer suu haystay wiilal yar say u haysteen raggan oo dhan adeer dhow yihiin baa Soomaaliya la keenay adeer kale ay arkeen waxay dhaheen kan adeerka way adeerkii runta haba hadda loo yimid xiri aabe kuwiina adeeray ahaayeen kanna adeer weeye maxay kala yihiin kuwana waa adeer kore kanna waa adeerkii runta haba lagu yiri is the true uncle baa lagu yiri waagida wuxuu bilaabay kan waa adeer ma kala dhaho aba true uncle miya bisoo kuwii kale halkaas ay ka taagan tahay isaga ilmaha halka ay ka joogto ee qurbaha ku koray ama halka ba joogo qurbaha dhinaca ka shabaadon xigtiya qaraabo la barin yuba xiriiriyaadi wax qofkan ka dhaxeeya ma yaqaan waxay u siiyeen ma yaqaan wiil yar oo aqaana wuxuu yiri waa gabar ay walaalayihiin silmaadeer bay ahaayeen baa dhowr jeer ciyaal dilayay ka dhicisay maalinka dambe intuu yeeray wuu heblay waadun ii heelisay horta maxaan sunnahay waadun ii heelisay horta maxaan sunnahay wiil oo koreey wuxuu baarayaa inay u heeliso maxaa sababay horta maxaan sunnahay waxaan badinayaa inay walaalo ahaayeen oo san aqoon isku hooyo ma ahayn marka ma yaqaan horta waad ii heelisay maxaan sunnahay buu leeyahay marka waa dhici kartaa qaraabadu qofka inuusan xiriirin inay sababto qaraabo yaqaan ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحكو دردارمي حديث إمام الترمذي إمام أحمد يورينا يارو حسنة وحير تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم نصبك يا أبترك وحاد كبرتان وهذا حكتدي يا قرابة كحل لسان هذه هو يلا وعي يا لطنا شيء يديد وعي يا لطنا شيء هو يلا يا عبتوها يا أذيروها aabbaha hooyadii waayo aabihii waayo yaa la dhashay yaa abtiya adeer u ahaa xigtadii iyo qaraabada xiriirada kala duwan kugu soo galaysa inaad barataad u baahan tahay walidaalika ansaabta in la barto abtirada la barto inta ilaa xad qaraaba xiriirinna ujeedadu ay noqoto bunagu tilmaamay marka wuxuu yiri qaraabada xiriirinteedu adduunkana waa ajr xoolahana way badisaa cimrigana way dheeraysaa saas darteed waa cimrigii ku dheeraynaya xoolahana ku badinaya aakhirana jannaad ku galayso bay way xaraadii ansar nasabkii barta marka waxaan rabaa inaan ilaahdo in ilmahaagu qaraaba goys noqdo waxa keeni kara inaadan qaraabadii xigtadiisii barin inta wax la wadaagtay inaadan barin ilmahaaga u fiirso haddii aad tiraado afka uga sheegto iyo haddii intaad fasaxan qaada qaraabadii aad dhex geyso uu soo barto aad bay u kala duwan tahay berri markuu soo bartay yimaadaan orod buu kaga hortegi laakiin haddaad u sheegto markay soo galaan wuu ka carari waayo ma yaqaan ilmihii gadaal buu carariyo dadkan maxay yihiin buu dhihi laakiin hadday u yimaadaan adna aad u geyso maalinka markay soo galaan dhabtooda orod buu isugu tuuri wuxuu ku kori qaraabadii iyo barashadii iyo xiriirintii waxaa ka mid ah waxyaabaha qaraabada inaad goyso keena in diintu kugu qaloocataa kamida waa baabta diinta iyo aqeedada baab kamida baa dadka qaar ku qaloocday markaasay qaraabadii gooyeen qofkani diin ahaan wuu toosan yahay iyo xataa waa muslim iyo waa gaal kuma xidhna qaraabada xiriirinteedu xigtada iyo qaraabadu xataa hadduu gaal yahay xaqii qaraabada wuu leeyahay وذلك النبي صلى الله عليه وسلم حلقيسي أذيردي إنه والله دقالين إنه والله صفتين
عباس يا حمزة وإلا صفتين رضي الله عنهما أبو لهب والله دقالغي أبو طالب والله صفتين لكن ما إسلامي أذيرك أبو لهب حديثه كنت المام يجيب وحيري إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها أنا أولياء ذي يدك الدين تيده ولا والبرا نقد حيا كمد معه وحيساس تهاي أبو لهب وأنت لا دجال ما يجي رحم يا قرابتني ما يقول يهينه حرق قلل ما يوان قينيا وحي حكتي يا قرابتني ما واكو حريرينيا وحي كلا لكن نقد حيا ضدك إنما ولي الله ورسوله والمؤمنون أنا ولي وحيا الله يا رسول كيسية ضدك مؤمنين تا باه markay tahay yaad wax isku darsanaysaan yaad mustaqbal wadaagaysaan yaydan iyo diin idin ka dhaxaysa wadadka muslimka markii la yiraahdo laakiin duqan adeerka ah ee haddana dib lowga ee tabad yadaa abi lahabin ku soo degtay ee diintaada la dagaalamaya ee tabbar laka hada jamactana kule ee wiilashiisi gabdhaha ka qabay kugu xumeeyo wada fura yiri haddana walaakin lahum rahimun سأبلها ببلالها ثمامة بن أسال ليرى هذا صو إسلامي ومدينة يمد إساقنا قلتها بل ليرى هذه قل كاكرة وقل بارات كإراشينكم مكا أغيي مادا بوكا بقبير يا سلطان يواسكاها سيان فعنين بين مكا أولاد نقمين وأنك ولا حذي ولا حميي انتو حناقبوا لبالان إلهي وحانكو قالي dhulka inaan hal jawaan oo masaga idinka imanin hal jawaan oo raashinka idinka goyn cunaqabatay ma insaari buu ilaa uu nabi maxamed ogolaada sallallahu alayhi wasallam nimankii quraysh inta dagaalku ka dhaxeeyay nabadna ma jirin markaas baa nabiga fariin u soo diray waxay leeyihiin ka soo dagaal inaga dhaxeeyo laakiin dad raxim iyo qaraabo wada dhashay baana dad meeshina gaaja loogu baabaayaa ninkii raashinkii dadku uu ka joojiyay waxa dhamaanayna waa qaraabadaadii xigtadaadii teen ninkii naga hadal naga dhigay fariin u diro wuxuu yiri raashinka u siidaa halaga yaabaa inaga maanta inaad dheelahay magaalkii xumaaye Abu Lahab haba la xiriiriyay ee diinta la dagaalamayay walaa walbara baad ku dhacday waad gaalowday baad dad qaar ka dhaadhicisa markaas uu qaraabada jaraya nimankii reer Quraysh ahaa inta dagaalka muslimiinta ku hayay oo Madiino 420 kiiloomitir u jirta kaga soo daba duulayay ba maanta raashinkii loo fasaxay laysa mas'ala diin ma aha laakiin xigtada iyo qaraabtinimadu xaq bay leedahay iyaguna waxay kula hadleen raxim iyo qaraabana dad raxima oo qaraaba ah oo ahal oo wada dhashay baana Soomaalidu soo ma dhihin hadii dhalasho la hubo kala tag laba hubo dadday wada dhashaan maanta isku xanaaqaysaan maanta waa iscaayaysan maanta feer baa isla dhacaysaan laakiin isku xanaaqayni iyo dagaalkiina waxa uu ka adago aakhirka adkaan doona dhalashada hadii dhalasho la hubo kala tag laba hubo saas darteed imisaad qaraabada iyo xigtada inta isku xanaaqdaan birina ka socotaan iyadan ciidida heshiisin dhalashada xariga dhalashada keenaya xariga qaraabtinimada iyo raximka keenayo xiisadan xanaaqu markay baaba'do xiriirkii qaraabtinimada iyo qoyaankii wada dhalashada soo duuxaya oo soo laabanaya waxa kamida waxyaabaha keeni kara inay xoolo jacaylka qofku aad u xoolo jecel yahay ama wax lagu weydiiyaa uu yiraahdo ama uu ka bakhaylaya xoolo inuu siiyo xoolo jacaylka iyo maal jacaylka farabadanna nabigu waa ka badigay sallallahu alayhi wasallam si guudba iyaakum washuha fa inna shuha halaka ma ka man kana qablakum arabiga waxa jira yiraahdaan al-bukhl washuh bakhayl weeye iyo shahiih weeye shahiih baa ka sii daran culimada qaar ba waxay yiraahdeen si uga sii daran yahay waan fasiraynaayo bakhayl waa ninka xoolihiisa ku diiday dhahay وحوليس بحن شحيحنا وكويس إسكداية قفك كالحوليسو كاهكرا وقفح بحنا يهدو أركواي نبي
haddii qof loo imanayo wax bixinayo xoolihiisii la arko warnihi xoolo bixis badnida nihu maanta oo dhan ruuxan masaakiinta ma isdhaafisid buu leeyahay oo isagu masaakiinta hadday agtunaadaan maxaa ka galay oo ninkan xoolihiisii la baxayo xoolahana ma laha miskiinkiina maaha markuu qof masaakiin wax siinayo arkuu dhibsan waxbaa ku dhegdhegiyo waa lagu didi qofkaasaa shaxiix la yidhahdaa bay yidhahdeen xoolihiisii iska daaye kuwa kale dadkii lahaa inay bixiyaan oo sadaqaystaan baa dhibi soomaaliduba laba eray bay leedahay anu garan maayo kii sii daran bakhayl waa taqaanaan soo maa dhakuul hebel waa dhakuul anu waxaan u aqaanaa bakhaylnimada mid ka sii fog oo bakhaylnimo mara ku dheg ah markay noqoto oo diir ku dheg qofku bakhaylnimada uu ku noqdo baa intaan qiyaasaya la dhihi jiray hebel dhakuul waaye war bakhayl maaha naga daa kaas dhakuul waaye iyagoo odayaashu yidhahdaan baan garan marka shaxiixii dhakuul iska dhahdaa rabto marka way keeni kartaa waxaa kaloo keeni kara qaraabadoo ku xumaysa qaraabadu inay ku xumayso aad xidhiidhiso ay ku gooyaan waxaasiisaba lagugu caayo adiga mardabadaada laga shaqeeyo laguu isubahaysto saf lagaa maro waxay saas tahay nabigeenna nin baa taa uga dacwooday sala allahu alayh alih wasalam isagiina muunan ugu cudurdaarinoo adiguna xadhiggooda jar ma dhihin rasuulka ilaahay wuxuu ihi qaraabadayda asiluhum wayaqطacuuni qaraabadayda waan xiriiriyaa iyana way jaraan wa uxsinu ilayhim wayusii'uuna ilay samaan u sameeya iyagana xumaan bay igu bedelaan saan yeelaan garan lahayn waan xidhiiriyey iyagoo ima xidhiirinayaan ixsaan baan sameeyey iyo wax wanaagsan xumaan baa laygu abaalgudayaa nabigu wuxuu yidhi alayh salatu slam lain kunta kamaa taquulu hadday saad sheegaysa ay runtaa tahay fakaannamaa tasufuhum lmal waxaad siinayso dambas kulul adoo quudinayaad la mid tahay dembiga iyagaa dhibka qaba walaa yazaalu macaka min allaahi dahirun inta aad sidaa tahayna ilaahay mid ku kaalmaynayo ku garab istaaguu kugu daraya xagga min allaahi baa gargaar iyo cid kuu kaalmaysa kaala socotaa hadalkaa dambe wuxuu dhiirigelin u yahay inuu saas sii wado isagu xidhiidhintana sii wado ixsaanka iyo wanaag samayntana sii wado haddiiba la yidhi muslimkii guud idfac bilatii hiya axsan qofkii ku xumeeya sama ugu abaalgud aduu wanaaji faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim haddayba xigta iyo qaraabtinimo jirta soo celinaysaay isagaa ka soo noqosho dhowaanaya aakhirka wuu soo noqon doonaa marba haddii la yidhi xagga min allaahi baa cid kuu gargaaraysa kuu raacin oo kuu lamaanayn dee yaa ka maarmoon u baahnayn cid rabbi xaggiisa ka timid oo garab iyo hiil kuha kula socoto macnaheedu sii wad bay ka dhignayd saa darteed way i gooyeen cudurdaar maaha way i xumeeyeenna cudurdaar maaha laakiin wax dhici kara waa qofku waxaa dhici karta inuu garanayo xukunkii qaraabadana yaqaano laakiin diinku dhaqan xumo iyo dacfuliimaanna waa keeni karaa qof aan bakhayl ahayn baad arki oo dadka wax siinaya oo xoolihiisii bixinaya qofka bakhaylnimo uma diidana dadkiina waa yaqaanaa oo xigtadii iyo qaraabadii haddaad ugu timaada nasabka dadka dad badan baan naqaanaayoo saas oo xigtiya qaraabaanna markaad garan weydo qofkan meel baad qaraabo ka tihiin baa la yidhi ayagaan u tagnaa waxaan war hebel xagee qaraabo laga yahay markaasuu ayeydii afraad iyo shanaad qofkii dhalasho laga wadaagay kugu abtirin isaguna cidna xidhiirin maayo wax dhaca wey qofkaasi iimaankii unbaa daciifayo waa qofka baraarujintan oo kale ay waxu tartu ka mid yahay waxaa dhici kara mashquul inay keento qofkii adduunyuu ku mashquulsan yahay subax buu ka lahaa habeenkii fiidkiina waa soo dhaca galbadaa waa dhacaa nin baa la yidhi soomaalidana maqal xoola raaci jiray war ma cadeeti goor maa cadaydaa buuri maalintiina waan foodhiyaa habeenkiina waan hurdaa maalintiina xoolaha foodhiyooda ku mashquulsanay habeenkiina hurdaan ku mashquulsanaya goor maa cadaydaa buuri mashquulkan xayaatada ee faraha badan wuxuu keenay qofki isagoo wixii garanaya
qaraabadii inuu wax siiyo raba mashquulkiisa in qaraabaduba ay iswaayaan waqtigu ku booqdana uu waayo waqti ay isku arkaan oo xogtooda ku ogaada waayo 24 saac waa mashquul hurdadaaba ku yarba intuu seexdo hurdadii lafteedu way nasashadiibu waqti u leeyahay mashquulka faraha badanna asbaabta keentay kamid tahay qofku inuu ka gaabiyo xiriirintii qaraabada iyadoo wax kale oo xumaati iyo dhib iyo aqoon la'aan ay jirinba inahaasi waa qayb ka mid ah kelmad ugu dambaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa waxyaabo waxaa jira qofka intaan soo sheegaynay in ay kamid tahay oo qofka uu kaalmaynaya qaraabada xiriirinteeda waxaa kamid ah in mar badan la xasuusiyo oo dadka lagu soo celceliyo oo dhagahooda in badan ku badato muhiimadda ay leedahay qaraabada oo la xiriiriyo aayaadka lagu akhriyo ajirkay leedahayna loo sheego cuquubada dayacaadda qaraabadana loo sheego intaas haddii wax badan lagu celceliyo fa inna dikraa tanfacu lmu'miniina buu qofku noqonayaa dad badan baa ilaahay ku anfacayaayo markuu wacdigaa maqlee dareemo laga yaabo muddo dareenkaa inuu ku jiro uu kan la xidhiidho kan telefoon u diro kan $100 u diro kan 100 shilin siiyo kan salaamo kan soo booqdo kan wax u taro kani cafi yiraahdo laakiin muddo markuu joogo bay xasuustii baaziinku ka dhamaanayaan xasuustii riixaysay baa ka dhamaanaysa mar labaad haddana in lagu soo celiyay u baahan walidaalika aayaadka iyo axaadiistu waxay ugu celcelinayaan marba markii la halmaamaba xasuusi waayo wadakir fa inna dikraa tanfacu lmu'miniina saa darteed in qofka la xasuusiyo qof walba qofku arkana uu dareensiiyo oo ilaa warniyo xaqi qaraabada ma halmaantay ajirkee leedahay ma ogid dembiga ka dhalanaya dayacaadeeda sow ma ogid bayna targhiib wa tarhiibka lagu wado waxaa kaloo kamid ah qaraabada dadka saad u tihiin iyo abtirka iyo nasabka sidaad isu galgashaan inaad barato si qofkii qaraabadanimadii aad u ogaato ilaan xiriirintu waxay ka dambaysaa inaad horta ogaato qofkan qaraabo inaad tihiin ilmihii la baro dhalinyaradii la baro ee wax walbaba sabuurad baynu ku dhajinaayo waynu baranaaye dee sabuuradahan guryaha yaallee wax lagu dhigayo iyo cashiradan guryaha la bixinayo iyo maaweeladan la qabanayo waxay u baahan tahay in qaraabadii baritaankeeda lagu daro nimanba waxaan ku yidhi iskuulle iyo meelo waxbarasho lahaa maadooyin waxaad ku dartaan mararka qaarkood tartan iyo musaabaqa ah oo ilmuhu intee in leeg buu abtirkiisa iyo xigtadiisa iyo qaraabadiisa garan karaa hooyadaa iyo hooyadeed magaceed hooyadaa aabbaheed magacii aabbaha hooyadii dhashay magaceed aabbaha aabbihii dhalay magacii aabbaha dhalay abtirka inuu ku gartaa laga yaabaa laakiin ilmaheenna in badan aabbaha hooyadii magacii haddii la yidhaahdo in badan baan garanayn hooyadaa hooyadeed hadduusan guriga ku soo gaarin oo ayeeyo joogin magaceed haddii la yidhaahdana in badan baan garanayn kuwa waxaan ku niman waxbarasho dhigtaay tartan jaa'izooyin la sameeyo ilmaha loogu sameeyo iyo dhallinyarta qaraabadiisa nin walba abtir iyo isa soo galgalka inta uu yaqaan marka ilmuhu ordaya waxaad arkay hooyo adii hooyada magaceed leh adii aabbaha magacii adii walaalaha waa imisaa raga imisaa dumara imisaa reer leh imisaan guursanin isagoo durbo kule aabbuhu u tegaya aabba hooyada magaceed imisaa kula dhalatay rag sidii ilmo hore baad arki lahaydeen waxbarashada iskuullada meel kama gashee marmar musaabaqaadka iyo tartanka la qabanayo aqoonta qaraabada ku daraa niman mar hore ku idhi qolada madalladana waa u soo jeedin lahaa inay madaarista marmar munaasabaad u qabtaan tartan barashada qaraabada iyo qoyska ah oo ilmuhu raximkiisii lagu barayo oo uu ku baranayo jaa'ize iyo hadiyadana lagu qaadanayo waxaan isleeyahay waxbay ka tari kari lahayd waalidkii iyo gurigana hawl badan baa u taalla waxaa ka mid aan isleeyahay waxyaabaha aan ku soo gabagabaynayaa qaraabada xiriirinteeda wax ka qaadanaya in qofku uu sabir iyo dulqaad u yeesho xigtada iyo qaraabada adduunyadan afkaagaba intaa isqoonsata waa isqaniintaa labada isqabana
marna waa nabad marna waa qayliya dagaal Soomaalidu soo ma dhihin laba isqaniye naagti colna maaha nabadna maaha arinta wax badan baa ka jira maalin kastana waa mar balbana waa la isqaban oo waa la murmi xaaja dhaxmari xaaja lagu ciloobo lagu kala tagana maaha dacol haduu dhaco waa la kala tagi jiray colna dad isku xanaaqsan dad col dhex yaala waa weegihiin laakiin duruufta nolosha keenaysa labada is dhashay maalin kasta way isku dhacaan waana wada socotaan dee labadiina isqabteena waa wada socotaan isku dhaciini ma goynin xiriirkii labadii is dhashayna isku dhaciini xiriirka ma goyn sidoo kale xigtada iyo qaraabada isku dhaco in dulqaad iyo sabr iyo taxammul loo yeesho aan isku dhaco qaraabada iyo xariga goynin waxna waan isku haynaa waxna waan isku leenahay waxaan isku leenahay kala mudannahay aan ilaalino qolaa laga sheegay walaalo ah oo aabbahood dhintay baxolii dhaxalka qaybsanayay nin oday wahaaba wuxuu yiri baa ilmaha yaray walaalayaalow waxayna iyaga dhaxyaala waa la jeclo waxayna naga dhaxayana waa dhalasho haddaba dhalashada aan meel geed ah soo saaranno si aynan waxay naga dhaxeeyay isku dhacdhaceeno iyo la jecladu dib uga gaarsiinin markaan tan dhamaysanno dhalashada iyo geed inoo saaranna aan kala soo degno marka waxna waa waxa dhacdhacay idinka dhaxeeya waxna waa dhalashada dadka ka dhaxaysa xigtada iyo dhalashada iyo taaha la kala saaro hadda Soomaaliya hay'adaha iyo shirkaduhu iyo xaafadaha maamulkooda iyo dariisyadu dad waxa danta guud wadaaga iyagu gaar isugu dhacsan xaafadaha isu timaada hadii la yiraahdo laba colan wada hadlin bay isu keen danta xaafadoo laga hadlay walba qof walba raayigiisu ka dhiiban hadii iskuulka la yiraahdo waalidkii ha loo yeero imise isku dhacsan baa isugu iman laakiin waxa laga wada hadlay goobta inta la joogo danta waxbarashada iyo iskuulkan iyo waalidiintan iyo ilmahooda ka dhaxeeya ilmahana islaayay iyo waalidkana isku dhacsanayo macallinka iyo dadkaas isku dhacsanayo meel baa la iska yar dhigi qof inay la yar taraarto waa laga yaabaa kala yar taraartana waa la qaban taa waa gaare tan guud ee dantan isugu nimid baa lagu dhihi xigtadana danta guud iyo isxiriirin baa idinka dhaxaysa qaarkood wax isku dhacdhacdeena wax gaar ah idinka dhaxeeya labadooda hal la kala saaro ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala kuwa qaraabadooda xiriireen naga dhigo nagu daro nagala badbaadiye dambiga qaraabada goynteeda wixii naga dhaxayna nagana dhaafa dambigeeda tawbadiya ka noqoshadeedana Allah ina waafajiyo warka waan badiyay raali hada barakallahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh